الله الرحمن الرحيم السلام عليكم guud ahaan umada Soomaaliyeed meel walba adduunka caalamkiisa kala joogtaan waxaan ku baaqayaa shir jaraa'id ugu horeyn horta waxaan idinku salaamayaa mar labaad salaanta islaamka waxaan ahay magacaygu Nimco Cabdiwahaab Shirdoon waxaan ka tirsanahay shaqaalaha wasaaradda warfaafinta muddo badan oo waqti badan leh waxaan ka mid ahay shaqaalaha sida rasmiga uga hawlgala wasaaradda warfaafinta مدرب واحد عدي إن قدوميها برلمان كدلكينا جمهورية الصومالية قدومي خليف إن أي سكول عين برلمان كا إن تاس أو هاي سنها دلكينا يدلكينا إن أي واحد عادة سكر عضو أو لقيه شينكر أو عقبضنا هينو ضد ولا لا أو إهل أو غرابة أو صحابة أو سياسة وداقة واحد عدي إن ما كم إذا وقت قاسا إن فيسبوك يجا عن كسو عبري إن قدومي خليف أن سور كيس الصادقين والله بوكي جريء أو وحلا جريء إن عن جف يغوح مال كردعة إن شقادة دي وسارد اللي يدب اللي يجوسوا عليه مجا يبكتر كي أصل الصعدة أو اللي يجوا هنشبيه اللي يجوا جراحيه إن أتجف أتكون عضي أتقرن كمال كجر عضي كدي وحيلا صح الله إن قيبت وسارد أو أجسمه وجوه الرئي وسارد ورفافنتها وأنا ككلنا أنا كو احترامي إن بلنتي وسيرك أجسمها جود إيجاتي أو شرف له إتجس له شرع له أو ناكسن أنا أقول كل ماي حفيز كيسة مددي ويقبته وقتي ويقبته بلنته مركانو تجينا وحو يجو هنشبي أو وشواب يجو سي فيسبوك أجا وحن أتصور دي قصة ما وقتها إنه يهاي إن خلد حيرنا وكقبنا يوم وحن كل أجا سموان محسنتي مرة ما يستهدل كي إن كدي مركو أودا ما يستي أنا نقول شواب تيجي سي إن maxaad igu haysataan ku uri sawirka gudoomiyaha ayaad soo dhigtay xusbi ayaad si aad u taageeraysaa bareera adigu amar taagleen waxaan ku ma dhamaysatay ha xeerka aniga ay qabanayay aad igu ganaaxaysid igu haysatid Facebook-gayga anigu da inaan madaxweynena maan caayin qarana maan caayin qaranka jiritaanka Soomaaliland kama soo horjeesanay xeerka aad hordhigashay aad igu ganaaxaysid maxaan ku jabiyay baan ku uri aad igu qabanaya Facebook-gayga ma mid anoo shakhsiga iyo page-kayga aanu leeyahay aragtidayda iyo xorkayga aan ku cabirayo iska tag witir aniga taas noo taalaabi guuri waa si xawad ma xasanta aday ku taalaabaan kuri waan iskaga soo baxay waxa ila soo hadlay xalay oo ahayd habeenkii ii xigtay ee aan shaqadayda anigu aan qarankayga waajibka igu lahaa anu gudanayay inuu qaybta aniga aan hoostiga maamulka aan hoostago inuu amar aniga ay soo siiyo nimco shaqadii aniga madaxdii aniga iga sareysay wixii ana ay soo siiyeen in aad nimco gaarsiiso in shaqadii laga joojiyay waxaan dib ula xiriiray in qaybta shaqadii shaqaalaha wasaaradda warfaafinta ee u qaabilsan waxaan ku wada warqada aad igaga eriday deecadeynteedii baan ka rabaayo ileen afka kama ihi ina yar oo aabaheed adbinaye warqadeedii cadeynta sharciga wadankan qaranka waxa yaala sharci baa yaalo qaynuun baa yaalo maxay wadada lagu kala hogayay isibaan ku warqada cadeynta warqada cadeynta ka baahan aad igu eriyasaan ileene shaqadeeda awoodida aad u sheegan sida iga joojinaysan marka Facebook-isa marka Facebook-an ku wada hadlana anaga buuriyo anaga iyo agaasimihii iyo intayada xafiiska iskula joogtay waxaan go'aan ku gaarnay in shaqada aad eriskaga tahay in hay'adda shaqaalahana warqadaada aan u gudbinay marxabiyo gudoon baan ku uri saasan anagu maamulka igu aan isku kay war dambeysay hadaba waxaan ku sheegayaa Maxamed Yuusufow hadii tan amar taagleyn iyo karbaash iyo kibir iyo taagsi la iskugu sameeynayo oo maxay toolay kibir qofka iyo adiyad iyo waxaan xeer aan qabanayn single iska gelinayo horta in cali kore wasiirka ku maamulay u shadabada kala dhaca ay maxay toolay oo qarankani xeerkiisa sharcigiisa uu qaban lahaa gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiye khaliif ee codka aqlabiyada ee saxda deegaankiisa dalkiisa ay ku soo doorteen ay maxay toolay kaga raali yihiin dalkiisa iyo dadkiisa cod karti aqliba ku soo baxay ee odaga saddexaad ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland hadii maanta TV-ga qaranka uu ka caayo wasiir Salmaan Cali Koore isagoo aanu arka inuu xeer jabin tahay hadii cid xeer lagu karbaashi cid xeer la dhacayo oo cid xeer uu qabanayo oo maxay toolay waajibkeedu tahay Salmaan Cali Koore xeer qaban lahaa mid baan ku sheegayaa la yaabna matid Maxamed Yuusufow Salmaan Cali Koore inuu dhagada dabada kala dhacayaa tahay oo la yaab matid kula yaabi maayo ana dhagada ka qaadan maayeen aniga in la dhacdo kibri adiyad aad la soo doonatid waxaan ka rabaa xeerka shaqadayda joojinay ee TV ee adigaga joojisay TV-ga anoo shaqaale barmala
iyo awoodda iyo kartida intaa leega ku gaarsiisay in aad shaqadaydii joojisid adaa cadayn doona waxaana ka raba xeerka dhigaya shaqaalaha Facebook isticmaala ee xorta ah ee muwaadinka odayga saddexaad ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiye Khaliif baad sawirkiisa soo dhigto waxaan ka joojinayaa shaqada xeerka aniga adigu talisid ee aniga i qabanayana waan kaaga fadhiya haddii cid xeer qabanaysi dalkan cabudun iyo xeer iyo sharci uu qabanayana waa ka jira garsoorkeena iyo dalkeen qof walba aqoon buu leeyahay waynu naqaana in cali koorana mid baan leeyahay waxa ka khaldan shaqadii madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu dalkeena ku soo igmaday hoggaanka ummadda madaxweynaha mucaarad iyo muxaafid madaxweynaheena mudane Muuse Biixi Cabdi waa madaxweynaheeni lama diidana mucaarad iyo muxaafid isaga madaxweyne ah ummad buu ku soo doortay Salmaan Cali Koore uu ku yiri ummad iyo institution maamul buu ku yiri bal waxaan ku xasuusinayaa haddii aad adigu isdhaafsan tahay wadankeena sanadadii ugu dambeysay COVID-19 baa haystay oo amarda Ilaahay ku yimi lacagtii ugu badneed ee wacyigelinta ee wasaaradda warfaafinta ummadda hooyada ballimataani bahadha mal degan lagu wacyigelinayay idaacadii qarankaad ogto oo fadhida oo kaaga baahan in maanta hooyada aad wacyigelinta inaad gaarsiisid xanuunadii COVID-19 laba waaweyn baa dalkeena qayb libax la ka qayb qaatay oo wasaaradda caafimaadka ku mahadsantahay u hagar baxday shirkadda Telesom baan ogno hooyada dib hadda mar ay ka dhageysanayso kaarkeeda Telesom farinta caafimaad bal wasiir baa madaxweynaha ku magacaabo ummad baa lagu magacaabo mas'uul baa tahay hantidii qaranka ee ummadda lagu u shaqeey halkay martay barnaamijyadii ugu lacagta badnaa budgetkii ugu lacagta badnaa hay'adaha ku soo gaarsiiyeen ee ahayti maxay tooleen wacyigelinta tii maaliyadda ugu soo dhacday wasaaradda halkay ku dameysay idaacadii qaranka ku baahan oo fadhida maanta oo ogtahay tahaysata oo maanta aan wacyigelin aan haysan dalkeeni hooyada haw degan bari degan galbeed degan ay kaaga baahan tahay marka waxaan oran lahaa Facebook in lagu mashquulo profilkeeda waxa uu qurux badan madaxweynuhu wuxuu idin amray in ummadan daacad u noqotaan aad u shaqeysaan taasaana idin khusaysa maxay isna waxaan kugu celinayaa laba midna way iskaga ka khaldantay mar labaad in adigu madaxweynuhu ku soo magacaabay shaqo qaran oo ummadan ku yiri institution wasaaradda ku diray iyo inuu ku yiri inaan profilkayga laga soo magacaabay oo profilkani macashir doon lagu yiri sida miina baarista sida ugu wareeg anigu ma yeelayo waxa sharciga iyo dalka iyo dadkaba aan u oolin qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland mar walba guul iyo gacan wanaagsan iyo xeerka oo guuleystay mar walba qarankeedu yahay assalaamu calaykum Allahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel walba adduunka caalamkiisa kala joogtaan waxaan ku baaqayaa shir jaraa'id ugu horeyn horta waxaan idinku salaamayaa mar labaad salaanta islaamka waxaan ahay magacaygu Nimco Cabdiwahaab Shirdoon waxaan ka tirsanahay shaqaalaha wasaaradda warfaafinta muddo badan oo waqti badan leh waxaana ka mid ahay shaqaalaha sida rasmiga uga hawlgala wasaaradda warfaafinta muddo dhaweyd waxa dhacday in gudoomiyaha baarlamaanka dalkeena Jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiye Khaliif ay isku dhaceen baarlamaanka taas oo ahayd sunaha dalkeena iyo dadkeena in ay wax caado iska dhacdo oo laga heshin karo oo caqabad lahayn oo dad walaala oo ehel oo qaraabo oo saxaabo oo siyaasad wadaaga ah waxa dhacday in maalmaha kamid ah waqtigaas inaan Facebook-gayga aan ku soo cabiray gudoomiye Khaliif aan sawirkiisa soo dhigay walay buuki gareeyay oo waxa laga dhigay inaan gaf iyo wax meel ku dhac ah in shaqadeedii wasaaradda la dib laygu soo celiyo magacayga iyo picture-kii oo isla socda oo laygu hanjabayo laygu garaaxayo in aad gaf aad ku dhacday aad qaranka meel kaga dhacday kadib waxa ila soo hadlay qaybta wasaaradda oo agaasimuhu ugu horeeyay wasaaradda warfaafinta waan ka kulanay ana ku ixtiraamaya ballantii wasiirka agaasimaha guud iga timi oo si sharaf loo itigis loo sharci leh oo wanaagsan aan ugu la kulmay xafiiskiisa muddadii uu ii qabtay iyo waqtiga uu ii qabtay ballanta markaan u tagayna wuxuu igu hanjabay oo uu jawaab igu siiyay Facebook-gaaga waxaan aad soo dhigaysaa ma ogtahay inuu yahay khalad xeerna uu ku qabanayo waxaan ku dhagaysay mood mahadsantii ma dhamaysatay hadalkii kadib markuu uu dhamaystay aan anigu jawaabtaydii siiyay maxaad igu haysataan ku uri sawirka gudoomiyaha ayaad soo dhigtay xusbi ayaad si aad u taageeraysaa bareera adigu amar taagleen waxaan ku ma dhamaysatay ha
xeerka aniga ay qabanayay aad igu ganaaxaysid igu hashitid Facebook-gayga anigu da inaan madaxweynena maan caayin qarana maan caayin qaranka jiritaanka Soomaaliland kama soo horjeesanay xeerka aad hordhigashay aad igu ganaaxaysid maxaan ku jabiyay baan ku oray aad igu qabanaya de Facebook-gayga maan mid anu shakhsiga iyo page-kayga anu leeyahay aragtideeda iyo xorkayga aan ku cabirayo iska tag Twitter aniga taas noo taalaabay guuri waa si xawad ma xasanta adig ku taalaabaan kuri waan iskaga soo baxay waxa ila soo hadlay xalay oo ahayd habeenkii ii xigtay ee aan shaqadayda anigu aan de qarankayga waajibka igu lahaan u gudanayay in qaybta aniga aan hoostiga maamulka aan hoostago inuu amar aniga ay soo siiyo ah nimco shaqadii aniga amar madaxdii aniga iga sareysay waxa ana ay soo siiyeen in aad nimco gaarsiiso in shaqadii laga joojiyay waxaan dib ula xiriiray in qaybta shaqadii shaqaalaha wasaaradda warfaafinta ee u qaabilsan waxaan ku warqada aad igaga eriday de cadeynteedii baan ka rabaayo ileen afka كميه إن يرى بهذا الدنيا ورقدي دي عدين شرعي وده كان قالنا كواحد يالا شرعي بقى يالا قانون بقى يالا محيد وده لجوك له جاي يسيب عن كور ورقدي عدين هذا ورقد عدين دي كبا حنا دي جو إريساني لنا عشان قدي ده أودي ده وش يجان سدي جو تشيني ساني مركا فيسبوك يصير مركا فيسبوك نخوض حلنا أنا قبول يجود أنا إيو أجاسمه إيو أنت يدي حفيزك سكولة شوكتبوه حنقول أنكو جارني إن شقد إريسك جت هاي إن هاي ده شغالة هنا ورقد ده أنا جود بني marxab iyo gudoon baan ku uri saasana anagu maamulka igu aan isku kay wardameysay hadaba waxaan ku sheegayaa maxamed yuusufow hadii tan amar taaglayn iyo karbaash iyo kibir iyo taagtaagsi la iskugu samaynayo oo maxay toolay kibir qofka iyo adiyad iyo waxaan xeer aan qabanayn single iska gelinayo horta in cali koore wasiirka ku maamulay u shadabada kala dhaca ayaa maxay toolay oo qarankani xeerkiisa sharcigiisa uu qaban lahaa gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiye khaliif ee codka aqlabiyada ee saxda deegaankiisa dalkiisa ay ku soo doorteen ay maxay toole kaga raali yihiin dalkiisa iyo dadkiisa cod karti aqliba ku soo baxay ee ah odaga saddexaad ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland hadii maanta TV-ga qaranka uu ka caayo wasiir Salmaan Cali Koore isagoo aanu arka inuu xeer jabin tahay hadii cid xeer lagu karbaashi cid xeer la dhacayo oo cid xeer uu qabanayo oo maxay toole waajibkeedu tahay Salmaan Cali Koore xeer qaban lahaa mid baan ku sheegayaa la yaabna matid maxamed yuusufow Salmaan Cali Koore inuu dhagada dabada kala dhacayaa tahay oo la yaab matid oo kula yaabi maayo ana dhagada ka qaadan maayeen aniga la dhacdo kibri adiyad aad ila soo doonatid waxaan ka rabaa xeerka shaqadayda joojinay ee TV adigaga joojisay TV-ga anoo shaqaale barmala iyo awoodda iyo kartida inta leega ku gaarsiisay in aad shaqadaydi joojisid adaa cadeyn doona waxaana ka rabaa xeerka dhigaya shaqaalaha Facebook isticmaala ee xorta ah ee muwaadinka odaga saddexaad ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiye Khaliif baad sawirkiisa soo dhigto waxaan ka joojinayaa shaqada xeerka aniga aad igu talisid ee aniga i qabanayana waan kaaga fadhiya hadii cid xeer qabanaysi dalkan cabudun iyo xeer iyo sharci uu qabanayana waa ka jira garsoorkeena iyo dalkeen qof walba aqoon buu leeyahay waynu naqaana in cali koorana mid baan leeyahay wala waxa ka khaldan shaqadii uu madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu dalkeena ku soo igmaday hogaanka ummadda madaxweynaha mucaarad iyo muxaafid madaxweynaheena mudane Muuse Biixi Cabdi waa madaxweynaheeni lama diidana mucaarad iyo muxaafid isaga madaxweyne ah ummad buu ku soo doortay Salmaan Cali Koore uu ku yiri ummad iyo institution maamul buu ku yiri bal waxaan ku xasuusinayaa hadii aad adigu isdhaafsan tahay wadankeena sanadadii ugu dambeysay COVID-19 baa haystay oo amarda Ilaahay ku yimi lacagti ugu badneed ee wacyigelinta ee wasaaradda warfaafinta ummadda hooyada ballimataani bahadha meel degan lagu wacyigelinayay idaacadii qarankaad ogto oo fadhida oo kaaga baahan in maanta hooyada aad wacyigelinta inaad gaarsiisid xanuunadii COVID-19 laba waaweyn baa dalkeena qayb libax la ka qayb qaatayo wasaaradda caafimaadka kuma hadsanta iyadu u hagar baxday shirkadda Telesom baan ogno hooyada dib hadda mar ay ka dhageysanayso kaarkeeda Telesom farinta caafimaad bal wasiir baa ta madaxweynaha ku magacaabo ummad baa lagu magacaabo mas'uul baa tahay hantidii qaranka ee ummadda lagu yiri u shaqeey halkay martay barnaamijyadii ugu lacagta badnaa budgetkii ugu lacagta badnaa hay'adaha ku soo gaarsiiyeen ee ahayti maxay toolay wacyigelinta tii maaliyadda ugu soo dhacday wasaaradda halkay ku dameysay idaacadii qaranka ku baahan oo fadhida maanta wad ogtahay tahaysata oo maanta aan wacyigelin aan haysan dalkeeni
hooyada haw degan bari degan galbeed degan ay kaaga baahan tahay marka waxaan oran lahaa de Facebook in lagu mashquulo profilkeeda waxa uu qurux badan madaxweynuhu wuxuu idin amray in ummadan daacad noqotaan aad u shaqeysaan taasaana idin khusaysa maxaadiisuna waxaan kugu celinayaa laba midna way iskaga ka khaldantay mar labaad in adigu madaxweynuhu ku soo magacaabay shaqo qaran ummadana ku riday institution wasaaradda ku diray iyo inuu ku yiri inaan profilkayga laga soo magacaabay oo profilkani macashir doon lagu yiri sida miina baarista sida ugu wareeg anigu ma yeelayo waxa sharciga iyo dalka iyo dadkaba aan u oolin qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland mar walba guul iyo gacan wanaagsan iyo xeerka oo guuleystay mar walba qarankeedu yahay. Assalaamu calaykum.